وأفتخر أنا 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 صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد سيدا لني ورقليبا محاضرة ما أنت عنوان كيدوحو يهي النفاق نفاق دا أما منافق نمضى منافق نمضنا وقفك إنو خير كي دادك أموجيو حميدي يا شرطين هوس وكوضو دادك إنو أموجي إنو يقف مؤمن لكن هوس كفر فسق وكوضو وعذرك أغو خطرت بضن oo qofkii ka badbaadayay jannadiisu ay tahay mid iyadu gacanta ku jirta qofkii aanan ka badbaadinna run ahaantii la dhihi karo cadaabkan ugu daran buu mutaystay min cindi Illaahi jalla wa ala waxaan u malaynayaa dad fara badan oo maanta malaayiin kor u dhaafsan oo muslimiina oo ku dhiiban magaca islaamka amaba umuqda inay muslimiin ay yihiin in yawm alqiyaama ilaahay uu weydiin doono oo uu dhihi doono islaam meesha kumaydaan hayn iimaanna maydaan huwanayn nifaaqad iyo munaafaqnimad qarsan jirteen kadibna waxaad mutaysateen inaad naarta ku dhex shalwataan waa arrin qof kasta ee muslima ay habboonta inuu isaga baqo qof kasta ee muslima ay habboonta inuu isaga baqo munaafaqnimaduna waxay soo abaartaa oo soo aadaa qofkii is yiraahdo adiga munaafaqnimo waa kala dheertihiin qofkii aaminka noqda ee iska dhaadhiciya isaga iyo munaafaqnimo in boon shaasic u dhaxeeyo masaafo aad iyo aad u fog inay labadood u dhaxayso qofkii iska dhaadhiciya waa qofka ay u badan tahay inuusan ka badbaadin munaafaqnimada nifaaqu khatarta uu leeyahay darteed ba Allah subhanahu wa ta'ala inta uu ka hadla munaafiqa kamuusan hadlin yani kufaarta munaafaqnimada ama munaafiqiinta sida loo fadeexeeyay oo ayaduhu si gaar ah iskandalkooda ay markaa u tixraaceen ama u dabagaleen waa ay ka badan yihiin ayadaha looga hadla kufaarta arag suurada ugu horeysa quraanka marka faatixada laga soo tago ilaahay markuu ka hadla muuminiinta الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة marka laga soo hadlo gaalada laga hadlo ayaa tirabadan ayaa waxa looga hadlay munaafiqiinta ilaa aakhirka laga gaaro dhowr ayadada xiriir ayadaha tirada badan ee israacsan ee looga hadla munaafiqnimada sababta ayadahan tirada badan ay meesha ugu soo arooran ayaa waxay tahay cudurka kan uu ka khatarsan yahay cudurka gaalnimada maxaa la qofka gaalka uu ku muuqda waa iska ilaalin kartaa hebelna waa muslim hebelna waa gaal diilin dheer baa u dhaxaysa daah baa kala duwaya teed baa dhexyaal isku mana darsoomi karaan laakiin qofka munaafiqa lagu sheegayo dadka muslimiinta ku dhex jira waa wada tukanaysaan waa wada salaadaysaan waa wada socotaan waa wada xajinaysaan khayrkii oo dhan baa isku la dhex jirtaan ومع ذلك waxa laabta kaga jiray way khilaafsan yihiin waxa muuqaalkiisa ka muuqda khatarteeda leedahay ummadan aad arkaysaan ee lagu magacaabo umma muhammadiya iyadu taariikheedu intaas soo yaalka ahayd soo jiraanka ahayd intaas soo jirtay oo rabbigay u yiri khayra umma waxay ummadan maanta ay la kici laadahay
waxay la turanturoonaysa marna ay kufayso istaagayso waxay ummadana horumar ay u gaari la'dahay waxay ummadana si sahlan cadowga markaa gacantii ay ugu gashay ummadan waxa mar walbaba dubaha madaxa ugaga dhacayo waxa mar walbaba loo kawiyo oo meel kasto ay tagaanba iyaga ugu liitaan wax kala maaha waxa la haray dadka ku dhex jira munaafiqiinta haddii munaafiq aanu nagu dhex jiri lahayn muslimiinta maanta iyaga cilmiga loo soo raadsan lahaa munaafiq haddaanu nagu dhex jiri lahayn ninka muslimka meel maraya sharaf buu yeelan lahaa munaafiq hadduusan nagu dhex jirin yacni noocan ma dadkeenan muslimiinta ah maanta nin gaala iyo meesha u degan uma soo qaxneen laakiin boqolkiiba boqol waa muslimiin camalka innaga aan la imanayno iyo islaamka afka aan ka sheeganaynana labadooda waa laba shay oo dagaal uu ka dhexeeyo isbuulinaya marka aan isa soo dhexgelin mar hadduu arrinku sidaa uu yahay maanta waxaan u banbixi doonaa insha allahu qaada dhig faahfaahsan oo aanu kaga hadli doonaa biidni illahi subxaana wa tacala munaafiqiinta waxaan u malaynayaa biidni illah qofkii ka badbaadana fa ilaahay inuu umahad celiyo qofkii laga helana oo wax la bedeli karo ha ogaada biidni illahi subxaana wa tacaala nifaaqu laba u kala baxaa midna waa mid weyn waa gaalnimada ee qofka uu qarsanayo qur-aanka uu dafirsan yahay qayb diinta ka mida aanu ogolayn qayb diinta ka mida aan laga dhaadhicin karin waa nifaaq cad iyo nifaaq yar oo aanan ahayn mid marka aad u weyn kaa marka wuxuu soo gelaya waxyaabo fara badan buu soo gelayaa oo waxaa laga yaabaa qofka dunuubta qarsanaya oo kale dembi baad qarsanaysaa qof baa zina qarsanaya qof baa xumi qarsanaya qof baa ribo qarsanaya qof baa wax isdhaadhaafinaya qof baa salaadaha dayacaya oo aanan jeclayn dadkan inay ku ogaadaan waa nifaaq yar weeye labadaa nooc oo nifaaq ayuu u kala baxaa biidni illahi subxaana wa tacaala ilaahayna markuu hadlaya wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar munaafiqiinta meesha ugu hoosaysa ee naarta la galay gelayaan arag ninka gaalka sida lama dhihin ogow maxaa gaalku isagu naar buu gelaya un baan maqlaynaa bas laakiin munaafiqa waxaa la yidhi meesha ugu hoosaysa qacriga ugu hooseeya ee la gaaro ee la taabto naarta ka mida waxaa degi doona qof munaafiq ayaa degi doona munaafiqow marka maxaa tahay intaynan munaafiqa inaan ka hadlin waxaa laga yaabaa in aan iska dhaadhicino marka nifaaqa laga hadlayo aniga adigaba inay noo muuqato nin kale ee masjidkan maanta aanan dhex fadhin ee meelaha maraya keliya inaan markiiba la abaaranno laakiin ogow saxaabatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam marka laga hadla munaafiqa nin walbaba isagaa isku tuhmi jiray ma munaafiq baa tahay nin walbaba isagaa farta isku godi jiray oo ka baqi jiray oo islahaa war adiga amaadba soo gashaa liiskan marka la taxayo haddii in yar aan u baxno abu darda waa ninaad garan kartaan waa saxaabi sharaftaa markaa leh waxaa dhici jirta markuu ataxiyaadka uu aqriyo ee uu dhammeeyo salaada ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka magangeli jiray munaafiqnimada wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min annifaaq allahuma inii acuudu bika min annifaaq allahuma inii acuudu bika min annifaaq ilahu adaan kaa magangelaya munaafiqnimada ilahu adaan kaa magangelaya munaafiqnimada ilahu adaan kaa magangelaya munaafiqnimada intaas soo celcelin jiray kadib waa la weydiiyey waxa ya aba darda soo adigu ma hid nin saxaabiya hadda waa ninkan cajiibkaa nin wuxuu ahaa iyadoo 4 ruux keliya ee muslimiin ay tahay waqtiga dabcan la joogay ninka wuxuu ahaa islaamka runtii la jahray ee meelaha la maro ilaahay dartii loo dhibaateeyey ayaa wuxuu ka baqay inuu munaafiq noqdo waa la weydiiyey markaasuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye qof ka badbaadaya markaa malaha waxaa laga yaaba saaka markaa soo toostay adoo iimaankaagu uu buuxo oo salaada subax iyo sunnadeeda ilaahay ku waafajiyey wardi adkaar intii ilaahay karaankaagu gacanta ama ku karsiiyey aad soo aqrisay duhurka marka la gaaray inuu nifaaqnimo ku soo gasho waxaa laga galabtay inaad iimaan meesha la timid markaad caraabaysid meeshaad aad u laabanaysa nifaaqnimo inaad la seexatid laga yaaba sariirta markaad tegaysid inaad mu'minad aad tahay subax markaad soo bariisatid inaad tahay qof munaafiqa maxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagaa yidhi qofka muslimka ama qofku wuxuu arooriyeystaa isagoo mu'mina wuxuu galabaystaa isagoo gaala wuxuu galabaystaa isagoo mu'mina wuxuu arooriyeystay isagoo gaala wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam qofka isrogrogayo daqiiqada ayaa u dhaxeeya laga yaaba inta muxaadaradan aan ku jirno saacadna in ilaahay subxaana wa tacaala iimaanka na waafajiyo saacadna nifaaqa markaa na waafajiyo ilaahay baan ka magangelaynaa inuu naga badbaadiyo ilahay baan ka magangelaynaa oo nifaaqa waxaana weydiisanayna inuu naga badbaadiyo xandala ayaa wuxuu leeyahay abubakar baa ila kulmay markaasuu wuxuu weydiiyaa xandala war maxaad ku waabariisatay
markaasaan waxaan idhi yaa xandala yaa abaa bakrin anigu waxaana subxaana allah munaafiq baan noqday iimaankayga kaamil maaha dhib baan dareemayaa xagga iimaanka markaasuu yidhi ma sidaaba ahaa oo maxaa dhacay wuxuu yidhi abubakarow rasuulka markaan la joogno iimaanka laynooga sheekeeyo janno iyo naar markii laynooga sheekeeyo aad iyo aad baan u baqnaa waxaad mooddaa jannadana way noo muuqataa naartana way noo muuqataa laakiin mushkilada jirtaay waxay tahay markaan guryaheenni aan tagno oo aan ahalka aan la fadhiisanno ciyaalkii iyo dumarkii aan dhex galno marka beyc mushtarkeena iyo tijaaradeena aan eryanayno intaba markaa lanaguma hayo wax iimaana laguma hayo waa isbedelnaa maba nihima dadkii rasuulka sal ly slm la joogay waa adoo yidhi oo kale intay muxaadaradu socotana khayr baan dareemayey markaan ka soo tegana albaabkan kaga tegey markaasuu yidhi xamda abubakar baa hadlo wuxuu yidhi war anna sidaasoo kale aan dareemaya abubakar hadda ogow ee la yidhi haddii iimaanka abubakar la saari lahaa kafad ummaddan oo idil iimaankeedana kafad kale la saari lahaa kan abubakar baa xoog badin lahaa la yidhi markaasuu yidhi ana ka xeebal aan aadna rasuulka sal lla alay wasalam labadoodii oo wada socda ayaa rasuulka sal lla alay slam u yimid arrinkii bay u sheegeen rasuulka sala allahu alay waslm si sahlan buu ugu jawaabay wuxuu yidhi ilaah baan ku dhaartay haddii xaaladiinu ay ahaan lahayd xaaladda aad ku sugantihiin hadday noqon lahayd xaalad iyadu daa'im ah oo marka aad guriga joogtaan iyo markaad aniga ila joogtaan haddaad isku mid ahaan lahaydeen oo janno iyo naar ay idiin muuqan lahayd haddii marka aad ila joogtaan sida taqwada ilaahay baqdinta ilaahay qalbigiina ay u gelayso ugu soo duxayso haddii laydinka hayn lahaa markaad guryaha aad tegaysaan malaa'ig baabaad noqon lahaydeen soo maaha idinka oo sariirtiina jiifa gogoshiina dul fadhiya ayaa malaa'ig intay idiin timaada in musaafaxayn laha waa laydin gacan qaadi lahaa laakiin heerkaa maydan gaarin walaakin yaa xandala saaca wa saaca saacana ilaah baa loo tukadaa saacana businesskaagaa la raacdaa saacana ilaah baa laga baqaa saacadna danaha reerkaagaa la fushadaa saacad ilaah baa laga baqaa saacadna wax soo baro wahaakadaa dawaaleeg macnaheedu waa sidaa idan meesha waxaan ka qaadanaynaa marka qofka mu'minkaa iimaankiisu mar walba grade ama graado gaara inuu taagan yahay marna inuu cirkaa isku lalayo uu gaarayo marna inuu dhulka markaa madaxa la geliyo labada xaaladood marna inuu qofka iimaankiisu uu buuxsamayo uu jaarjgaraysmayo danabaysmayo marna uu markaa yahay qof markaa maxay aad iyo aad u liito munaafiqa waxaa dhacday oo kale xudayfa bin yamaan ayaa waxaa la yidhi wuxuu warinaya wuxuu yidhi cumar bn khadaab baa la yidhi kaalay cumarow qof baa dhintay mayd baa lagu tukanaya kaale ku tuko dayib markii sidaa ay dhacda kadib oo maydkii markaa la keenay wuu soo baxay marka wuxuu rabay marka inuu tukado xudayfa ku dhegay wuxuu yidhi ha ku tukanay ninka kan maxay xudayfa wuxuu ahaa sekreteerka rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa nin wax kasta ee sira ee rasuulka sala allahu alayh wasalam uu hayay lagu siraystuu ahaa sir walbaba isaga hayay dadkana uma sheegi jirin ilaan rasuulka sal alla alay slm mar hore wuxuu u sheegay liis dadka isaga la joogaayay ay ku qoran yihiin liiskaa waxaa ka buuxa dad fara badan oo munaafiqiina xudayfa marka wuxuu yidhi kan ha ku tukan waa munaafiqa markaasuu yidhi ma hubtaa haa cumar bn khadaab markii la yidhi ninkan waa munaafiq ha ku tukanin horeyna aan looga maqlin xudayfata ibn yamaan ninka una munaafiq yahay markiiba baqdin baa soo gashay markaasuu yidhi xudayfa ilaah baan kugu dhaariyay rasuulka sala alla alay wasalam ma ii kaa sheegay magaciiga ma sheegay ma munaafiq baan ahay meeshaasuu baqdin markaa galay markaasuu yidhi maya munaafiq ma tihid laakiin adiga waxa kaa soo haray inay badbaadaan waa adagtay inay badbaadaan aad bay u adagtay idan cumar bn khadaab oo ah khaliifatu lmuslimiin abubakr isagaa ku xigay ayaa wuxuu isku tuhmayaa inuu nifaaq markaa ku jiro haddii abubakr uu heerkaa u baqayo haddii cumar bn khadaab radi allahu canhu heerkaa uu gaarsiisan yahay baqdinta uu ka qabo munaafiq aniga adiga maxaad u malaynaysaa situationkeena muxuu noqonaya walidaalika waana arrin muhiimaddeeda ka mida marka uu leeyahy ibnu abi mulayka waxaan la kulmay buu yidhi 30 oo saxaabata rasuulillahi sal alla alay wasalam raggii saxaabada ahaa nin kasto aan la kulmana wuxuu isaga baqi jiray munaafiq markaa ku jira nifaaqad waan arrinka annaga granted aan u qaadano qof walba welwel laguma jiro waa la sii socdaa waa la soo socdaa maalin maalmaha ka mida oo diyaar aan u nahay in iimaankeena aan miisaannama jirto yacni maalin qof ma isweydiisa weli ma munaafiq baa tahay mise mu'minaad baa tahay ilan ma aha noocan ma ninka markuu gardaysto oo masjidka uu joogo macnaheedu ma inuu iimaankiisu 100% u yahay gabadha markay jilbaab ay meesha ay xiran tahay quraanka xifsan tahay macnaheedu ma inay nifaaqu adoon ogeyn buu ku soo galayaa sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam ba uu tilmaamay
adoon ogeyn buu kusoo gelaya nifaaqa idan maanta meesha waxaan ku hayaa marka liiska aniga adiga haddaan ka badbaadno waxaan nahay dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala u nicmeeyey liiska waxaa ku qoran intaas oo tilmaam baa ku qoran tilmaamooyin ciiddaa ka badan oo run ahaantii haddii aan soo koobo oo aan isdhaho oo aan yareeyo aan gaarsiin kara ilaa 30 liiska waa tilmaamayaasha lagu aqoonsan karo qofka munaafiqa qofkaanan ahayn haddii liiska qodob walba oo la sheego ay kuu muuqato inaad ku sifaysan tahay ogow munaafiq buuxaad tahay ama uu ii sifaysma inaan ahay munaafiq buuxaan ahay haddii wax la iga waayo waxna la iga helo bimacnaa waxa weeye munaafiq part time baan ahay munaafiqnimadeedu waxay taagan tahay 10% miyaa kaa soo gaari karta ma 20% baa kaa soo gaari karta ma 30% baad tahay haaf miyaad gaarsiisan tahay ma 100% baad tahay ilaah baa og nifaaqu meel buu ku taagan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo mana u malaynayo dadkeenaan meesha fadhiya markaan iska bilaabo inaan ka badbaadayno liiskaas waa midda ugu horreysa qalbigaagu inuu buko sifada koowaad qalbigaagu marka uu buko bushi uu ku jiro oo noocan ma qalbigaagu aanu fayoobayn ogow munaafiqnima kugu jirta maxaa yeelay ilaahay isaga yiri fi qulubihim marad fazaadahum allahu maradan walahum cadaabun aliim bima kaanu yakdibun qulubtooda bugta dhex ahaatay ilaahay baa u ziyaadiye cudur kale cadaabna weylayhi bima kaanu yakdibun baanta ay sheegeen waa maxay marka cudurka la sheegayo qofka inuusan diintan ilaahay aanu ku qancin shay kasta marka loo sheego wuxuu leeyahay okay laakiin wixii hawadiisa ay diidan tahay wuxuu leeyahay maya arrinka kale lagama bixi karo sheekhu waa maxay ka hadlaysa Yurub baa la joogaa ma haddaadna leedahay guri yacni waa la degi karaa guri aan riba lagu iibsan ayaa ma aragtay riba la'aan miyaa la noolaan karaa ma haddaad nooga sheekeynaysaa sheekhu macquul ma waxaan aad ka hadlaysaan in gabar muslimada maanta dhan jilbaabka waa lagula yaa wadada markaad maraysid maradan weyn aad diidaysid nacam way adag tahay in 24 saac shanta waqti marka salaad loo soo taagnaado way adag tahay wax kasta lama samayn karo xalaal iyo xaraan lama kala saari karo shaqadan lagama tagi karo shilinka lagama tagi karo waa soo taagan tahay maxaa yeelay qalbigaaga kuma fayooba amarkan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu bixiyay haddii anigay adiga laynaga waayo in aan 100% aqbalna amarka ilaahay oo aynaan dood aynaan ka keenin marka way marka la leeyahay mu'miniin baa tihiin laakiin haddii qalbigeena bugta ay ku jirto wax kastoo la sheegay aynaan ogolayn beenna ay noo sii raacsan tahay oo aan isku dayayno xuduudda ilaahay inaan ku tumanno oo ka tallaabno oo aynan soo dhawaynayn cudur way waa waxyaabaha munaafiqiinta marka lagu yaqaan bimacnaa marka waxaa lagaga baahan yahay diinkan ilaahay baa soo dejiyey kanna isaga xalaal yiri kanna isaga xaraam yiri kanna makruuh baa la yiri kanna waa la kala cadeeyay wax alla waxay diintu cadeysay sideeda u qaado الله سبحانه وتعالى إسجير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره مرهد دي إلهي وحن أقوي إن أني أن كفكرنا صرفنا وأن كلا دورنا وما أهانن دين ويدين بقول كي بقول الله سبحانه وتعالى سود دي سيدا كو أقبل يرفع فاصلنا وتجدون بإذن الله سبحانه وتعالى أرنك الله بعد ضمع حق الشهوة قفك مرك قلبي يسوء صاقل سادرتي مرك الضمك لها اللي يوحى ليري فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ضمر مرك الرجل لها الليسان هذا الكيان للدبعين جلجلاء عداية كلمة أن لقود درسانها كل واقن مع دعيسة قف قلبي سبكه وكلمة هذا أنا نؤد كيسان كرين لغيابا إنه حمي إنه كدعو إنه كفكر يكب حنكرته قف كاسا ماشي جري هذا الكهد دبعين إذا ماشي وحلقة قادانا يا هدي طمع شهواني وكسوقله أو قفك كم مشغولة وحيابها دينت إلهي كفوقين كره ما انتران قفك وحو حرف الديا فيلن آديات أفالحن وحلقو سميني فحش إيته وحلقة يابا قفك إنا بأبح ذا كلية أفر لا تنكسع مجازين إيو جورنال كهالي كلية جورنال كحميدة إيو بونا ذا موين وحكان على فيرسن وحلقة يابا وحا إشي سكود عي إنا يهين شيحن كلية وحلقة يابا أفر لا تنكسع تليفون إن لقوة الجرو 24 ساعة نين إينا كلا أجنبية
oo shaqo aan isku lahayn oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax isugu darin oo 24 saac wada hadlay waxay ku wada hadlaan adigu kala sheeg kelmadda ninka uu ku dhawaaqay waa kelmad liidata gabadhu kelmadii ku dhawaaqayso waa kelmad liidata marka iyada nin kale uu qabana uma sii jirtaba arrinka marka tamaca shahwaaniga ah ee shahwada ay kugu bixinayso haddaad iska heshid ama aniga aan iska helo ogaada arrinka wuxuu la mid yahay shay wuxuu muujinaya qayb nifaaqa kamida walow 5% Allah ka dhigay taaba nagu jirta idan meesha waxa noo soo baxday hadalkeena waa inuu kontroolaado hadalka aad ku hadlaysid gabadha muslimada nin raga markay la hadlayso hadalkeeda ha adkaado hadal dabacsan waan yaanu noqonin ninka markuu naag la hadlay hadalkiisa ha adkaado hal dabacsan yaanu noqonin hadalladan ma aragtay meelaha laga bartay oo lagu tala galay labada ruuxa isqaba inay ku wada hadlaan lagaba yaabo markay gurigeeda joogtay kala xishoonaysa ninka kan ajnabiga miyaa ku yiri kula hadal iyadana waxay kamid tahay waxyaabaha muujinaya nifaaqa arrinka saddexaad qofku inuu isla weynaado isla weynin qumanihiisa qoorta ugu jira qob weynin isqaad faajartan diid oo aayadda marka la keenaba macnaha la ii sheegay waxa kan وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدونهم مستكبرون إلهي مركو كهل منافقين توحو يري وركالي هدي لقو يري هذا رسولك هايدين دمداف ويديه مدح انتي لابان بي حق أسي جيستان إياغو إسويني سيني هدي مركا الدين إلهي لقالها الله oo aad diidid aayadaha ilaahay kamida oo aad tirahdid macquul maaha dad waxa laga sheegay maana foorsan kara anu salaad iyada lagu jiro way ugu adagtahay dad waxa laga sheegaya waxa ka hadlaysan waxaan diin aqli ma galayo yaani maana hadda waxa la sheegaya ama qof baa khaldan wala la hadlay war waxaan waa ribo war shaygan waa xaraam war waxaan aad cunayso waa xaraam war ilaahay wuu diiday waxa laga la hadlay masaa'ishii diinta laga la hadlay lama ba sheegi kar maana hadda la sheegaya إلهي في القرآن كله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد قفك مركا اللي يقول هذا إلهي كبق أنا فئي سنتاج أوقله كبر إيا كرفيرس أوقله إلهي سبحانه وتعالى وعليه قفك إساقه فحسبه جهنم بابوحين كرتانيكا كان ماشي كليه هو يقولون كرتوا محي وإنت جهنم ماشي سمكا كدقيا الله سبحانه وتعالى القرآن كموكا اللي يحيري ورأيتهم يصدونهم مستكبرون iyagoo isla weyn ay si jeesanayaan quraanka markaa ku yiri arrinka afraad wuxuu yahay ku jees lagu jeesay aayadaha ilaahay aayad ilaahay haddaad ku jeesid oo kullama aayad la sheego jees ka dhigatid waxay kamid tahay calaamadaha lagu yaqaan qofka munaafiqa quraanka wuxuu yiri yahdharu almunafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahdharun munafiqiintu waxay iska ilaaliyaan inay ku soo degto aayad ka waramaysa waxa laabtooda ku jira ilaahay marka wuxuu yiri jaas ilaahay baa muujin doona idan jaasku aayad marka lagu keenay inaad tiraahdo waxan macquul ma arrinka kan Soomaa war meesha la jooga ma taqaanaan ha Norway baa la jooga wadan hormarsan baan joognaa waxaad noo keenaysaa waxyaabii Soomaaliya laga hadli jiray diin laga dhigi jiray macquul ma inaad meesha aad keentid ta ilaahay Soomaaliya rabbiga ka aha ma waanu meesha rabbi ka ahayn rabbul alamin ka meesha rabbi ka amaanu rabbi ka ahayn rabbigii shalay 20 sano ka rabbi noo ahmaanu rabbi maanta noo ahayn maxaa marka bedelay diinka ilaahay lagu jeestay maxaa keenay walidaalika waxa uu tilmaamay waxay tilmaamayaan culimada macaani fara badan meesha ku soo degtay aayadaha arrin kale wuxuu yahay ku jees lagu jeesdeysay dadka muuminiinta ah tii hore waxay aayadka ilaahay qof muumina haddaad ku jeesjeesid ama gabar mu'minada haddaad ku jeesjeesid ama qof mu'mino ilaahay diinkiisa ku dhagan haddaad ku jeejeeso arag kuwii waa kwantandada jiiday kuwii fool maroodida jiiday haddii ay ka gaarsiisan tahay ama aayad marka lagu dul aqri hadda waa kan nimankiisaan ahaa diinka ilaahay marka lagu jeejeeso wuxuu muujinayaa nooc munaafiqa kamida nifaaqnimada kamida wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un markii shayaadiinta ay la kulmaan idinkan idin la jirnaabeen qolihan jeejeesun bay naga ahayd arrinka afaraad lixaad ee lagu aqoonsan karo in qofku munaafiq uu yahay waa maxay inaad dadka muslimiinta aad u diidid inay wadada ilaahay tabarruc ama shilin la baxaan oo wadada ilaahay ku nafaqayaan qof baa wuxuu leeyahay waxbaan baxsan lahaa khayr baa meel lagu sheegay mashruuc baa la dhisay masjid baa la dhisaya afar kumiya meeshan geenayna dad agooma wax la siinaya dad dhibaataysan wax la siinaya wuxuu leeyahay ma ha bixinin wadaadada ma taqaanaan meesha wadaan dana kale ku wataan
مسجد كان صومها العقد اللقية نمان كلا جيب كودو كلن أدوك ديار وما إهيد إنا دوح بحسد قفك وح بحين لها ودهور تاقانتا والنوع منافق لماذا كمذا إلهي إساق قرآن كوكير هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون إلهي مركو كان لا يحير وقاليها له يان وحبال السين دتك مؤمنين ورسولك أكتي سلجوك إلا يكلي إذان لكن إلهي سبحانه وتعالى خزائنتي سوي بحذا عرك يدولك بإلهي سبحانه وتعالى فلو ذاهي عدو الضانان إساقا أرزق عدو الضانان إساقا أديدا مركا أرنكا وحو موجينا وحيابها لأجيهاي حديث كان عيادا ومركا يسود دقيسي زيد بن أرقم نمكا لقومك عباي وحيري دولان بانو كجرني كدي وحان مقلانين عبد الله بن أبي بن سلول منافق وين هاي وحان مقلي إساقا الله يان وحبال السينا دادك رسولك مركا لجوغا هذا الكيسان وحو هادان كلها بان حقا إيه مدينة المنورة كان شرفت له كوذو حنبو صاري دونا أركي بان مركا أذاركي أشيغي بير مس عمر بان أشيغي كدي من رسولك الله شيغي كدي من رسولك وإياري كدي من وحا الله ياري نينكي منافقها منافق داربو ماشا لسو استاغي وحير وحبا منه يا رسول الله كدي من رسولك صلى الله عليه وسلم نينكي بو الرمي أنه إبانيه إلا آيادون مركا كسو دكتي صفادة الضباد وحي تاي هدي أدادك مسلمين تاتكو تلمانتين مكاسنمو ترى المسلمين ويليتان دادك موينين تصوما ويدوهانيهين عقل ماله وداد ليتا داد ما عرفتي مانكود او كراي معها داد مانكود او فديا معها وداد دنبايا ومتخلفين البح معها والرباديال والرميجي رمي وما بحثنا يوحي لمذا إلهي سقاير وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون مركل يرار ودادك سيدي الرماية وحيلين كوان مكاسياشا وحبا وكلا سارنين سيدي الرمين إيجا أبو الله سبحانه وتعالى أرنك كلا سيدي هذا اللي يقام وحا كمذا منافق لماذا إنو ننك كانوا أنا صومالي وأفتخر أنا